Maalmaha dunida ayaa waxaa isugu jira maalin farxad iyo maalin murugo ah. Qof ayaa dhinta, qofna waa uu dhashaa. Maanta waa geerida Allah u naxariistay abwaankii weynaa Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo caan ka ahaa geyiga Soomaalida. Haddaba waxaan waxyar idinka xasuusin doonaa taariikhda abwaanka, naxariistii Rabbi dushiisa ha ahaatee. Maxamed Ibraahim Warsame oo ku magac dheer Hadraawi waa mid ka mid ah tiirarka fanka Soomaalida, waana abwaan ku caan baxay curinta heesaha iyo gabayada. Maxamed wuxuu ku dhashay magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burca sanadkii 1943. Waxa uu ka dhashay qoys faqiir ah oo ka koobnaa 9 carruur ah, 1 gabar ah iyo 8 wiil. Maxamed markii uu 10 sano jirsaday waxa uu aaday dalka Yaman, isagoo wakhtigaa laga bilaabo la noolaa adeerkii. Halkaa ayuu ka galay dugsi, iyada oo magaca uu ku caanbaxay ee Hadraawina uu halkaa uga baxay. Waraysi uu bixiyey ayuu ku sheegay magaca inuu asal ahaan ahaa Abuhadra, uu macallinka dugsiga u bixiyey maadaama uu ahaa nin ardayda aad uga sheekeeya misna ka qosliya. Markii uu dugsiga ka baxayna wuxuu macallin ka noqday mid ka mid ah dugsiyada hoose ee dalka Yemen. Markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay, gobolladii waqooyi iyo koonfurna midoobeen, Hadraawi Yemen waa uu ka soo tegay, isagoo dib uga soo laabtay dalkiisa hooya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Isagoo halkaas markaa noloshiisa ka sii bilaabay, wuxuu ku biiray jaamacadda ummadda uu ka qalin jebiyey, uu isla markaana ka noqday macallin. Hadraawi ayaa noqday gabyaa iyo heese cuuriye caan ka ah bulshada dhexdeeda. Wuxuu ahaa nin aad uga soo horjeeda maamulkii militariga ahaa ee uu majaraha u hayay Jenaraal Maxamed Siyaad Barre. Heese iyo gabayo ka soo horjeeday maamulkii dalka u tiriyey darteed ayaa sababtay in xabsiga loo taxaabo, waxaana lagu xiray magaalada Qansax Dheere oo 90 kiilomitir dhanka koonfur galbeed kaga jirta magaalo madaxda gobolka Baayo ee Baydhabo. Wuxuuna xabsiga ku jiray muddo ku siman 5 sano, laga bilaabo 1973 ilaa 1978. Hadraawi markii uu xabsiga ka baxay wuxuu ka mid noqday maamulka Akadeemiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta. Xilliyadii bilowga burburka iyo dagaalkii sokeeye, Hadraawi wuxuu aaday Ingiriiska, isagoo kadibna safarro ku soo maray inta badan waddamada Yurub iyo Maraykanka, wuxuuna ka qayb galay xaflado faneed oo lagu dhigayay waddamadaas. 1999 ayuu Hadraawi ku laabtay Hargeysa. Heesaha uu caanka ku ahaa abwaan Hadraawi waxaa ka mid ah heesta Beledweyne oo uu qaaday fanaanka Soomaaliyeed ee Xasan Aadan Samatar, heesta Hooyo oo uu qaaday Allah u naxariistay fanaankii lagu magacaabay boqorka codka Maxamed Saleebaan Tubaac. Abwaan Hadraawi oo ka mid ahaa abwaaniintii loogu jeclaa fanka Soomaalida ayaa maanta geeriyooday, waxa uuna muddo badan la ildaranaa xanuuno soo ritay. Haddii aad soo gaartay dhammaadka muuqaalka, waxaynu kaa codsanaynaa inaad muuqaalkan sheer garayso, qaybta hoose ee commentigana aad ugu ducayso abwaan.